بسم الله الرحمن الرحيم. أخذك تلفونك مقالة هرقيسة وحن كل حريري وأن أدعو مهد علينا يا وزيرك الرماها كدها سومالي لان علي محمد ورن عداء وزير أن واحد كورن تامل مهن دقيقيو وحق النبضة أياد ودين بالمركة هراء أنه كب اللون إن واحد كورن تا إن حالة النبض قليو إن قوابب بدن وأدو حكا قبان يسين واسده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعض ما صرتها رنتي هؤلاء أول قلي صغير باكن علي ميلدو تجارة أوك جاره ذا لما رأوا رنتي وراءه بسكوت دجاجنا بسكوت عاي وحنا بكرة نتي لحقف يشين دعوة مركا وان تجمعي شيء أصلا وانو قاعدني حاول شارنتي شيء ونكسن أيه أوك علي نبضينا شيء ونكسن بالله حلي الذي سوى هرنتي عن كلام عربنا ونوجد تجمعنا مركا أريد أصيف عن أو قرص بندر تدمعتي نبض ونكسن أو وطنا ونحن إلهي نقوله. مركا إن محيطها وجدة دجالك إن بيلها سهلك كل حمر أي محي أهيد. بيلها رنتي وحوي عيال شغال عبي دراسو خد عبي عيال بيجريين ووقت حاجة ويكون بهيد. marka waxa lagu heshiiyay meel xoolaha lagu dhibeeyo inaan xoolaha la dabaalsiyo inaan biyihii afkii iyo xoolaha la dabaalsiyo aan wada kafaynaynin marka waxa lagu heshiiyay afka uu naga caddo dabada siibaa la isku yar maandhaafay marka halkaas ay dhibaatadu ka dhacday waxaan kaloo ku weydiiyay meelo badan ayaad maalmahan waxaad ka wadeen arrimo nabadeen magaalada Burco kale waa tagteen waxaadna dhawaan soo afjarteen sida ay sheegteen khilaaf ka taagnaa dhinaca shidaal qodista oo muran uu ka taagnaa maxaa arintaasna lagu dhameeyay runtii waanu tagnay shidaalka dhulka laga baadayo dad badan baa degan marka deegaan muxuu ahaay markaa deegaanada kamid ah ayaa waxay muxuu ahaay ka hadlayeen wixii ay xuquuq u leeyihiin shaqaalaha oo kale dabeedna taasaan muran ka yar yimid waanu tagnay kiina si wanaagsan baanu u dhamaynay hawshina halkeedii bay ka bilaabantay wax dhibaatooyinba kama iman marka halkaasi wixii hadda ka dambeeya hawshii shidaal qodista waa isku raaceen dadka ku dhaqan gobolka Togdheer in ay soo dhaweeyaan oo hawshu ka bilaabato aad iyo aad waanay bilaabantay waanay markiiba maalintiiba waa la bilaabay waana lagu heshiiyey si runtii qiimadaan ay hawshaasi u socotay in kastoo ay arrintaasi jirto haddana waxaa jirta eedeymo loo jeedinayo ciidamada Somaliland oo la leeyahay mararka qaarkood nabadgelyo xumo ay sameeyaan dad qaarkood oo magac Allah guryahooda loogu dhacaa ciidamadan RRU-da ayaana aad farta loogu fiiqaya marka arrimaha noocaasi sidee bay u dhaceen ciidamada runtii way jiraan waa ciidamo si gaara u tababaran oo loogu talagalay nabadgelyada wixii halis keenaya nabadgelyada bulshada in lagaga hortago marka waxoogaa khaladaad yaroo dhacay ciidankaas waxa weeyaan ciidan gaara marka runtii iminka waanu ka xaraynay inay ka hawlgalaan hawlaha caadiga ee booliisku qabto marka waa ciidan si gaara loo tababaro iyagu waxyaabaha halista mooyaane dalka khalkhal gelinaya nabadgelyadiisa mooyaane wax kale looma diro marka iminka way xaraysan yihiin ciidamadaas oo muxuu loogu talagalay waxyaabaha degdega iyo emergency-ga ee khatarta gelin kara nabadda qaranka yay ka amar qaataan oo toos amarka u siiya ciidamadaasi waa ciidamada booliiska waa qayb ka mida booliiska maaha ciidamo si kala waa ciidamo booliiska hoos yimaada iyo wasaaradda daakhiliya marka waa ciidamo si gaara u tababaran laakiin waa ciidamo booliiska weyn laakiin amarka markay ciidamadaasi tagayaan meel ama qof ay u dhacayaan ama meel wax ka soo qabanayaan amarkaaga oo wasaaradda arrimaha dibadda adigoo ah ayay ku dhaqaaqaan miya waxa weeye ciidamadu waxay leeyihiin hawlo degdega baa jira taliyaal bay leeyihiin marka aniga haddii aan lay baahan lafteeda ciidamadu waxay amar ku qabaan haddii wax khatari jiraan in si degdega ay uga hortagaan marka amarka shaqada way qabaan haddii dee loo baahdo aniga lay baahdana waa laysoo marinaya laakiin waxa weeyaan wax kasta oo degdega emergency oo soo geli kara nabadda wax yeeli kara waxay u haystaan amar inay ku dhaqaaqaan marka ma khalad baad u arkaysaa
ma khalad baad marka u arkaysaa tallaabadii magaalada Hargeysa ka dhacday oo ninkii mas-uulka ahaa gurigiisa loogu dhacay eedeynta noocaasina ay ciidamadaasi marka ma khalad bay ahayd baad leedahay mise sax bay ahayd waxa weeye iskala maaha meesha wax lagu dareemo waa inta adduunyada imika waxa ka jira argagixisooyin iyo dhibaatooyin iyo falal adduunyada ku cusub baa jira marka falalka ayay la jaan qaadi karaan waa ciidamo loogu talagalay la jaan qaadaan markaa dadka mana dilaan waxna kuma sameeyaan qofka hadduu dambiilihii la doonaya yahayna waa la qabtaa haddii laga waayana apology baa la bixiyaa markaa wax kale oo dee dadka lagu sameeyaa ma jiro laakiin dadku had iyo jeer waxay kabsadaan waktiyada muxuu ahaye loo yimaaday waxaasay ka hadlaan markaa taana sidii aanu bal wax uga qaban karna waan isku dayna haddii la yidhahdo waxaa jirta eedeyn kale oo ah in dad badan oo mas-uuliyiina qaarkood oo laga qabtay oo qaarkood culamaa udiin ku jiraan muddo dheer inay xabsiga ku jiraan oo wax maxkamada lasoo taagin arrimaha noocaas oo kale ah maadaama ay dhibaato shacabka ay ku tahay maxaad ka qaban kartaan waxa weeye arrintaasu annaga laftigeedu ma ogolin mana dhici karto in muxuu ahaye dadka intoo la qabto aan ama waxa weeyaan qofka hadduu waa la tuhmi karaa qofka laakiin qofka waxa weeyaan dembigiisii ama in lagu cadeeyo maxkamad la geeyo ama muddo muxuu ahaye marka baasha dhamaatay la sii daayo marka sharciga wuxuu waqti buu dhigayaa ayuu dhigayaa in qofka intaa muddadaa la hayo muddadaa ka badan lama hayn karo laakiin waxaan ku dadaalaynaa ninka qofka la tuhmay ee dembi lagu tuhmo in muxuu ahaye si dhaqsaa kiiskiisa loo baaro oo markaa ama maxkamad la geeyo oo dembigii lagu helo ama ay noqoto baaristuba in lagu baayo markiiba lasii daayo taasaanu ku dadaalayna siyaasiga cali khaliif gallayr oo xildhibaan ka ah baarlamaanka Soomaaliya eedeyn buu u jeediyey dowladda Somaliland oo wuxuu yiri haweenka ka soo jeeda Khaatumo ayaa si xun loola dhaqmay oo waliba lagu jir dilaa magaalada Hargeysa dhibaatooyin badan baa dadka loo geystaa marka ma u koor gasheen arrinta noocaasa dowladda waxay haddaad been sheegayso been run sheeg baa ayaa la yidhi halkan wax la yidhaahdo Khaatumo iyo Somaliland dad kala qaybsani ma joogaan Hargeysa dadku waa dad waalo looma kala yaqaano muxuu ahaye dad sidaa isir ahaan loo raacano waddankaygan ma jiraan waa waxaan la heli karaynin weeye cid si gaara loo faraxmeeyo ama loo dhibaateeyana ma jirto dadkana waa dad iswadadhalay maaha umad soo gashay oo kale maaha abti iyo ilmaabti iyo habar wadaag badan baa laysu yahay marka dhaqanka Somaliland waxaas wax ka suurta galo maaha marka wallahi dee ma garanayo meelihii Yurubta iyo South Africa iyo Malawi meelahaas uu ku dambeeyay intii dambe ama xamaro dee wuxuu arki jiray dadku beerayso laayo laakiin halka iyaga ma jiraan wax beero iswaafo iyo beero islaayo beero cadaawad isqabaabnimo ma jiraan marka taas wax halkayga ka jirta maaha odayguna waxaan leeyahay bardi ma ugu noqdo warkaan meesha ka keenay laakiin maadaama in muddo ah uu idaacadaha ka hadlayo oo uu leeyahay arrintan noocaasi ah Somaliland oo waliba uu ku hanjabayo in haddii aan la joojin ay dhibaatooyin ka imaan karaan dhinaca Hargeysa ama Berbera ama Burco xiriir ma la sameyseen oo ma kala hadasheen si aad ugu qancisaan siyaasiyiintaasi Khaatumo isteed oo asagu ka mid yahay waxyaabaha ay tabanayaan feerka uu sheeganayo ninka odayga ahi Hargeysa way ka buuxaan iyagoo idaacadaha ka hadlaya waa la talmay baarlamaanada ka hadlaya waa la talmaya waa dadka ugu dhiiran Somaliland haddaad ka dhegeysato maxaa markay baarlamaanada ka doodayaan iyo markay hadlayaan marka odada iyo foolxumada midna ma jirto laakiin waxa laga yaabaa inay tahay mashruuc gaalada wax lagaga helo oo masalan dumar iyo dad masaakiin iyo dad muxuu ahaayeen funaweedaba ayaa la waxyeelanaya waa mashruuc ugu talagalay oo filaya odaygu inuu gaalada macaawino kaga helo laakiin wax waaqaca yaala maaha oo dhulka yaala maaha waa tahay dhinaca kale waxaan warar soo baxay sheegayaan in ay jiraan wada hadallo la doonayay in adinka Somaliland iyo Puntland inay kaga wada hadlaan arrimo kala duwan miyay jiraan horta wax wada hadala oo Puntland aad doonaysaan aad la furtaan
puntland runtii de waa gobol aanu derisnaa ah marka nabadayada iyo derisnimada iyadana ma xuma marka waxa wadahadal oo kale oo dee jiraa ma jiraan xuduud baanu leenahay xuduudkeygana waxaan ka wada shaqaynaa sidii ay nabad u ahaan lahaa marka haba yaraatee waxa jira duruuf oo inaan imika wadahadal gaara furnaa oo meesha yaallaa ma jiraan wasiiro ka tirsan puntland nairobi bay tageen baa la yidhi wasiiro somaliland way tegi lahaayeen arrimo dhinaca sool sanaag iyo cayn iyo arrimo la xiriira iyo waxyaabo kale oo amniga xaggiisa ah ayaa dooneyseen inaad ka wada hadashaan baa la yidhi taa ma ay jirto miya maya waxa weeyaan dee anagu si aad la socoto anagu soomaaliya waanu ka doonay qaran madax banaan doono aan soomaaliya ka madax banaan la siman puntlandna waxa la yidhahda waa gobol kamida muxuu ahaaye soomaaliya waa oo dee autonomousa marka anagu ka dawlad ahaan haddaan cid wada hadlayna waxaanu wada hadalnaa dawladda federaalka ee soomaaliya wasiiradeeda iyo wasiiradeeda wada hadla laakiin de wax gaar ahoo anaga iyo puntland naga dhexeeyo dhibaato ay ma jiraan laakiin saaad maqashay dee marka arrimaha soomaaliya somaliland laga hadlayo waxaanu wada hadalnaa dawladda dhexe ee soomaaliya waa tahay safarka madaxweyne ku-xigeenka puntland uu taleex ku tegay ee uu kula hadlayay arrimo badan sidee u aragteen arrintaa runtii waxaan u aragnaa arrintii xadguduba waxaan u aragnay inay tahay arrin xumayn karta annaga iyo xilka naga dhexeeya puntland oo runtii aada u wanaagsanaa marka waan ugu sheegnay inaanay arrintaasu tahay arrin xumayn karta gaarka somaliland iyo muxuu ahay puntland maamul goboleedka puntland marka arrintaas runtii waana imika iska dhamaatay wixii dambana haddii alla yidhaahdo waxaan jeclay inaanu ka digtoonana haddii alla yidhahdo ma xiriir baad la samayseen madaxweyne ku-xigeenka oo aad ku xiriirtay kala hadasheen soo gelitaankiisii dhinaca deegaanka taleex waxaan kala hadlanay warbaahintaanu kala hadalnay isaga xiriir lamaan ka sameyn marka sidaas waan ku wada hadalnay waa ta adigoo aada u mahadsan waraysigan aada naga aqbashay haddii uu tegay deegaankaasi puntlandna way sheegtaa khaatumo state iyaguna maamul bay ka sameeyeen halkaas oo shirar iyo waxyaabo badan bay ku qabanayaan somalilandna waxaa iyaduna waxay tiri dhulkaasi waa dhulkan hoos yimaada maadaama inta goboladaas sidaa la isugu haysto oo la isugu dhegan yahay miyaanay habbooneyn in wada hadal saddex geesooda laga sameeyo arrinta halkaas oo cidu markaas ay u madax banaanaato horta waxa weeye annaga iyo soomaaliya xuduud baanu leenahay xuduud caalami oo ingiriis iyo talyaanigu kala jeexdeen baanu leenahay marka anaga nagu waajib inaanu ilaalino karaamada iyo muxuu ahaye ilaalinta muxuu ahaye xuduudayada khaatumo annaga waxaanu naqaanaa niman reer somalilandna oo wax tabanaya iyagana anagu waana wada hadli karnaa wax dhibaato jiraana ma jira gobolo hore wax tabanayna way jira saa wada khaatumo oo kale waa la dhameeyey iyagana waxaan ku jira jirnaa haddii la yidhaahdo inaanu dhamayno maadaama ay yihiin dadka reer somaliland marka wax khaatimo la yidhaha wax khaatimo la yidhaha marka mada aqoonsanidin miya khaatimo wax lama aqoonsanin laakin de shacabka iyo meesha degan ee gobolka ama degmooyinka ay sheegayaan ay magaca u bixiyeen dadka degana waa dad reer somaliland waa dad wax naga dhexeeya waa dadaan wax wada leenahay waa dadaan qaran ka wada leenahay marka dadkii kulligood mahay gobolada wax badanoo wax tirsaday baa jiroo la dhameeyey sidii kuwii horeba loo dhameeyey oo iyaga loo dhameynayna waa soo dhaweynaya waa tahay adigoo aada u mahadsan waxaad soo hadal qaaday in arrimaha aada dawladda soomaaliya kala hadlaysaan oo aad ka wada fadhiisan kartaan shirkii ankara waxyaabo ayaa ka soo baxay xaggee hadda wada hadalkaasi ku dambeeya walahi wadahadalku de waa kii muddana socday meelo lagu kala tegayna way jiraan wixii dambana waynu sugi doonaa hadba see usoo baxaan wixii aanu kala qayb galna waxa weeye wax danta somaliland ku jirto laakiin waxa danta soomaaliya ku jirta anigu kama qayb galno marka taani waxaynu sugi doonaa shirarka dambe hadba nooca yihiin bay ku xiran tahay
واتهي aad baad u mahadsan tahay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Somaliland علي محمد ورن عدي oo khadka telefoonkan kula xiriiray isagoo jooga magaalada Hargeysa aad baan ku salaamay wasiir fursadaas aan siisana waa kaaga mahad celinayna aad baan mahadsantiin aad iyo aad waana saxdeed alle hadii qof ay ku warqabtay waa tahay mahadsanid